بمعنى الزيادة والسيادة هي كورسار كأي وحل إلى هذا الربا إلى هذا اللغة العربية حق الشرعية هي سيدة علماء إيه قانان ربا وحيليهن ربا معنى أصلي ويلاده لبا معنى وفرع ويلاده haddii la doono waxa la dhihi karaa saddex qaybood baa loo kala qaadi karaa mid walbana goonidiisa marka qeexid loo siiyo qaybta koobaad waa qaybta loo yaqaano riba al-qard loo yaqaano ribada deynta ku timaada oo macnaheedu uu yahay in wax la isdeymiyo wixii la isdeymiyeyna isagoo oo dulsaar wata la kala qaato dulsaarkaana marka hore ee deynta la kala qaadanayo ayaa lagu heshiinayaa deynta marka la soo celinayo inay dulsaar wadato oo ruuxu intuu bixiyay in ka badan oo ka siyaadsan in la soo celiyo midda waa nooca loo yaqaano riba al-qard baa loo yaqaanaa waxayna inta badan ku timaadaa deymaha maxaa yeelay shariicada iyo diinta islaamku waxay qabtaa baabka la yiraahdo deyntu wax lagama faa'iido deyn mar haday meesha timaado iyo deymin macnaheedu waxa weeyaan waa samafal way waa ihsaan way waa wax ilaahay ajir lagaga rabo way laakiin wax laga ganacsano oo dad wax lagaga qaato oo siyaado lagu helo ma ah waxa la yiraahdaa baabul muqaayadaat iyo baabud dayn labay kala yihiin daynku macnihiisu waxa weeyaan samafal iyo ihsaan iyo ajir aad ilaahay kaga doonayso maxaa yeelay inta uu ka maqan yahay dayntu ka maqan tahay waxa lagu qorayaa sidii adigoo sadaqaystay ajirkaad ka heli lahayd oo kale aad ka helisay مثلا hadii $100 aad dad dayn u siiso inta ay ka maqan tahay waxa la qorayaa sidii adigoo oo bixiyay oo sadaqaystay oo kale ajirkeeda lagu qorayaa ma dhici karto marka inaad ilaahayna subhanahu wa ta'ala aad ajir kaga hesho isla markaana aad dadkii dulsaar kaga qaadato oo wax lagugu daro oo aad ka iibsato dadkii deyntii labada isku heli maysid diinta islaamku mar labay ka dhigtay deyntu waa samafal waxna lagama helo waxba adduunyada lagama faa'iido laakiin faa'iidadeedu faa'iido aakhiro iibka iyo wax kala gadashaduna faa'iidadiisu waxa weeye waa muaamaladaas qasadku uu yahay ruuxu intuu adduunyada joogo inuu wax ku faa'iido oo wax ku helo taa waxa loo yaqaanaa riba al-qard baa loo yaqaanaa ribada nooceeda labaad waxa la yiraahdaa riba al-fadl baa la yiraahdaa oo macnaheedu waxa weeye waxa jira 6 nooc oo laba noocna ay lacag yihiin 4 noocna ay cunto yihiin 6da nooc isku iibintooda la isku gadayo ayaa waxa ka timaada ribada laba nooc nooca loo yaqaan riba al-fadl iyo nooca loo yaqaan riba an-nasii'a 6da nooc waxa weeyaan sida xadiidka nabiga ku soo aroray sallallahu alayhi wasallam dahabka waa nooc fidada waa nooca labaad burka oo مثلا qamandida asal ahaan meeshuu ka yimaada shaciirta oo heeda aynu niraahno timirta iyo milixda nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri markii dahab lagu gadayo waa inay isla ekaadaan meeshana lagu kala qaato markii fidda lagu gadayo waa inay isla ekaadaan meeshana lagu kala qaato markii مثلا يعني qamandi lagu gadayo la isdhaafsanayo waa inay isla ekaadaan meeshana lagu kala qaato wakadalika hadii heed lagu gadayo hadii yani waxa weey milix lagu gadayo waa inay isla egyihiin meeshana lagu kala qaato labada sharti mid kamid ah hadii la waayo
macnaha waxa way waa ribo waxyaabahaasi marka lixda nooca ayay culimadu waxay yiraahdeen laba group bay u qaybsamayaan group waxa la isku yiraahdaa lacagaha la dhahaa oo waa dahabka iyo fidada maxay la waagaas lacagtii la isticmaali jiray lacag ahaan waxay ahayd dahab oo ka iman jiray dawladdii ama imbaraatoriyadii Room iyo fidada oo ay sameyn jirtay imbaraatoriyadii Furs labada dawladood baa lacagaha sameyn jiray Roomna waxa ka iman jiray dahabka Fursna waxa ka iman jirtay fidada lacagta la isticmaali jiray labada lacagood bay ahaayeen marka maadaama lacagta la isticmaalo ayaga ay ahaayeen waa group iyagu waxa halka galaya wax kasta oo magac lacag ku yimaada oo dahabkii iyo fidadii booskoodii gala sida lacagahan waraqiga ee hadda adduunku isticmaalo kale ama dollar ha noqdo ama shilin ha noqdo ama riyaal ha noqdo ama dirham ha noqdo ama yan ha noqdo wax alla wuxuu doonay ha noqdo lacagahan adduunku hadda isticmaalo waxay qaadanayaan xukumkii dahabka iyo fidadu ay lahaayeen qaybtaasi marka waa qaybta lacagaha qaybta labaad oo afarta nooc kale ay galayaan waa qaybta cuntooyinka waay oo waliba cuntooyinka asaasiga ma aha khudaarta iyo waxyaalaha fawaakihda ma ee waxa weeyaan waxyaalaha cuntada asaasiga ah ee nafta bini aadamku asaasan ay ku tiirsan tahay sida mesela يعني قمنديدا iyo heeda iyo يعني waxa weeye timirta iyo milixda iyo cinabka iyo يعني waxa weeyaan inaga marka la yiraahdo mesela galeyda iyo digirta iyo waxyaalaha cunto ahaanta kuwaasina waa isku group oo isku nooc bay noqonayaan labada group bay marka culimadu u qaybiyaan lixda nooc ee nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam labada nooc marka shuruud bay leeyihiin waxaynu nidhi markii lacagaha la isku iibinayo iyo marka raashin la isku iibinayo labadaas aan u kala qaadayno raashin markii la isku iibinayo waxa weeye uma badna hadda adduunku inuu raashin isku iibiyo oo raashin la dhaafsado laakiin waagii hore waa jiri jirtay hadda laakiin uma badna طيب laakiin waxa badan in lacagaha la isku iibiyo oo lacagaha la isku sarrifo oo dollarkii iyo riyaalkii iyo shilinkii iyo dirhamkii iyo macnaha wax diinaarkii la isku sarrifo tana aad u badan wixii marka lacaga ku yimaada haddii lacaguhu ay isku nooc yihiin oo dollar la isdhaafsanayo la isku gadayo la isku sarrifayo laba sharti baa laga maarmaana in la helo shardiga koobaad lacagaha aad isdhaafinaysaan ee isku iibinaysaan waa inay isla eg yihiin $100 iyo $100 $50 iyo $50 shardi waa kaas haddii la isku iibiyo la isdhaafiyo la isku sarrifo $100 iyo 99 senti oo 1 senti dhiman yahay macnaheedu riba la galay lacaguhu mar hadday isku nooc yihiin oo hal dawlad ka soo wada baxeen la isku iibinayo la isku sarrifayo horta waa inay isla eg yihiin waa in la xaqiijiyo inay isla eg yihiin labada lacagood waa sharti shartiga labaad labada lacagood la isku gadayo maadaama ay yihiin lacag hal wadan ka soo wada jeeda waa in intaan la kala dhaqaaqin oo la kala tagin la kala qaato haa'an wa haa'an ho oo isi nin walba xaqiisi waa inuu qaato intuusan meesha ka dhaqaaqin hadday dhacdo in iyada oo wax laaban yihiin la kala tago la kala dhaqaaqo macnaheedu waxa weeye riba la galay $100 baa la isku sarrifayaa iyo $100 nin baa wax ka dhiman yihiin ama labadii $100 mid baa dib laga bixin doona midna hadda la dhiibaya waa ribo waxa laga maarmaan amar hadday lacagtu isku nooc tahay waana in meesha lagu kala qaato marka labaadna waa inay isla eg tahay hadday lacaguhu kala duwan yihiin oo laba dawladood soo kala saareen ayada way kala badan karaan laakiin shartigii ahaa in meesha lagu kala qaato wali waa yaala isagu
هكلا باتين دولار إيه الريال هكلا باتين دولار إيه الشيلين هكلا باتين مشكلة ماله لكن وإن إنتان لكلا دقاقين لكلا تجين نينكي دولار كوتين الدولار كي بحيو نينكي شيلين كوتين الشيلين كي أوديبه وإنتان لكلا دقاقين لكلا قاتون عيل النبي يقول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد النبي صلى الله عليه وسلم هذي كلا قديسيهين أجناس تأدسكو إبنيساني سيدا دونتان أوجد أبو النبي صلى الله عليه وسلم هكلا بدنادين هكلا يرادين سيدا دونتان لكن إذا كان يدا بيد قعن هو إسي هاء وهاء ها وحني والبحق سوى إنه لو ورجع أنت المشي اللي هو كلتي تاسوا وحي كوسابسن أحكام الذهب كي في الضده هذانا يحل كان هذا اللي تشوجنا لعجها أدومك يقابك الله معموله يقابك الله يسوق صرفه يقابك الله يسوق قضه لو وضع شرطي بالله مرمانة حدي أي دعوة إن العجيه يجوا يسكن نوع كلا بدنيهن ربا الفضل بالله حدي دعوة إن اللوادي العقود اللي يسكن صرفه يميتكود أي دين نقطة ربا النسيء الليلة لوضع نوعه قيبت الصدح هذا قيبت الظهر مرينايو أن الربا الدين بالله هذا حدي تاي واحد يسكن قضيه لعج الراشين أيت أيضا مشكلة مرة ديننا ونقول كرا وأنا كلا بدن كرا هذه الراشين لا يسكون قضيه راشين كاسدو يسكن نوعي هاي وإنه إسلئجي هاي ماشنا لو كلا قاتو هذو كلا قديسين الراشين كلا إسقافين أيه وكلا بدن كرا لكن وإن ماشنا لو كلا قاتو هذه كلا قديسين هين شرط جوا إن ماشنا لو كلا قاتو كليو هذه إسكون مديهين شرط جوا لبو نقنايا أو إن ماشنا لو كلا قاتو إسلام كان إسلئجيهين لبدا شرطي مع مركزي ماشي إيمانية دي مثل وايو مركزي معاملة واحد نقونيسا معاملة ربوي أبي نقونيسا ربا لقليه ربا ده مركز شريعة أي تقانو صدح ذا قيبوت أي الله قيبية إن هذا السيدة أشرحني أشرحني وحصلوا بكريسة إن الربا ده لنعياك لكت ماده وحكي إيمان كرتا مثلا ربا ده وحكي إيمان كريسة وحيلا هذا أدون كأدو بدين ومثلا بدأ عادي في ستي بدأ عادي أنت ينكوجو سووريجن أيات سي إبس بدأ عادي أنت ينكوجو سووريجن وقعنت هذا السوق اللي هو ذا لوريجن بات سي إبس معناه هذا وحويان مركا رباط قش لماذا؟ لأن مركب كان مثلا أتكسر رتي أدي بدك كسر رتي بدك كسر شراء ولي قعنت هذا السوق اللي كم بني جيلها كسر رأي ولينا آذن لوريجن markaad iibiso adoon gacantaada uusan soo galin taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay boqolkii kun ee uu kuugu fadhiyay ayaa waxaad ku iibisay 110,000 lacag un baad marka isku iibisay kala badan waa in badeecadii gacantaada soo gasho la wareegto marka kadibna aad badeecadii gacantaada soo gashay aad iib geyso waana mid nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi uu reebayo in la iibiyo badeecada ayadoo aan la qibdoonin oo gacanta ruuxa ina galin oo uusan la wareegin oo gudoomin maxay yeelay marka waxa laga baqayaa riba meesha soo gali karta oo lacag lagu gaday oo kala badan suuradaas soo baxaysa ilaan badeecadii maba imaaninba lacagtii aad ku gaday iyo lacagta aad marka dambe siinayso oo kala badan umbaad isdhaafisay badeecadiina meesha maba taalaba taas meeshana waa ka timaada waxaa kaloo ribadu ku timaadaa qaabo badan oo xeeladaysiya sida riba ciin oo kaleeto ciinada oo kaleeto macnaha waxa weeye ruux baa wuxuu doonayaa wuxuu rabaa lacag buu rabaa lacag kaash ayuu baahay lacagtii kaashka ahayd ninna siin maayo lama dayminayo cid siinaysa ma jirto wuxuu samaynayaa marka wuxuu u imaanayaa nin bakhaar haysto raashin iibinaya markaas wuxuu ku leeyahay niyo waxaan u baahanahay inaad iga iibis jawaan raashin ah ama gadbad ama 10 kiilo waxaan doonayaa bariisa inaad siiso ood idaymiso waayahay buu leeyahay waa ku daymiyay waxaan kugu daymiyay inaad macna wax weeye yaani 1,000 shilin baan kugu daymiyay mesela markuu la wareego oo ka qaato buu wuxuu leeyahay waan iibinayaa dib ma igala wareegaysa
ها وكالا وريقيا إمساد كو يبينيس سقال بقول بان كو يبيني واي سقال كي بقول وكاسي سنة يا 10 كيلو نينكي بخار كلاها بي ديب ugu noqotay ninkii oo 900 qaatay kun lagu leeyahay meeshii buu ka tagay suurada soo baxaysa marka waxay noqonaysaa kun shilin 900 oo kaash ah ayaa kun shilin oo deyn ah oo ninkan lagu leeyahay lagu gaday jawaankan dhexda la galiyay iyo 10 kiilo dhexda la galiyayna xeelad iyo siyaasad weeyaan wax meesha ku jira baa يعني وحوي ومد النبي يقول شيء صلوات ربي والسلام عليه بيع العينة إذا تبايعتم بالعينة حديث كذي يعني والنوع حيل ضيسيا والنوع حيل ضيسيا والرباض الله حيل ضيسني آد بين أبدا انتهي قاببك الرباض الله وحيل ضيسته آد بيقفر بدنيه سيدا حديث النبي قال لك فهمه صلوات ربي والسلام عليه الرباض مركز النوعية ذا كلا قدسن أما الرباض الدين تكتب ما ده النقطة أدونك هذا آد أقول نقمه oo dhaqaalaha adduunku ku salaysan yahay iyo bangiyada iyo mortgage-ka iyo yaani waxa weeye waxyaalahan deymahan la qaato iyo ama taa ha noqoto ama ribada iibka ku timaadee beeca ha noqoto labadii nooceen hadda sheegnay ah ribada saddexdeeda noocba waxay ka mid tahay waxyaabaha shareecooyinkii ilaahay uu soo diray hadday tahay kitaabkii tawreedaha hadduu yahay kitaabkii injiil ahaa hadduu yahay qur'aanka شرائعدي واوينيد وحيالها اسكو وافقدي إنو سنبنانين أي الرباضو كميته توراد ساسا كتال إنجيل ساسا كتال قرآن كان وركي زي سكبدا حيالها مركا حرامتا قطعيقا إيه كتبتا نمانتا اسكو وافقدي رسوشنا نمانتا اسكو وافقدي بكميتهاي إن أي حرامك أهيد بلشوينكي إنقه الرئي يهود خاصة قرآنك إلهي كشيء سبحانه وتعالى وحرب قرآنك كيري فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله سبحانه وتعالى وحليه ظلمي أي قلين يهود درتت ayaa waxaan korkooda ka xarimnay dayibaad waxyaalo wanaagsan oo xalaal u ahaa waxyaalo badan oo xalaal u ahaa waxaan uga xarimnay oo ugu diidnay dulmi iyo dambiye ay galeen daraadid maxaa dambiyada ka mid ahaa jidkii ilaahay bay dadka ka jeediyeen oo ka leexiyeen waa mid ribadii bay cuneen oo qaateen ayagoo laga reebay oo ha qaadanina la yiri waa mid labaad waa mid saddexaad dadka xoolihii dadkay xaq darro ku cuneen arrimahaas ay ku kaceen darteed ba ilaahay wuxuu ku ciqaabay waxyaalo wanaagsan oo xalaal u ahaa inuu ilaahay ka xaraameeyay subhanahu wa ta'ala ayadu marka waxa ka muuqda wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu ribada waa laga reebay ha cunina la yiri iska jira la yiri wayna qaateen asbaabta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalo xalaal ah oo fiicna looga xarimay bay ka mid tahay macna inay kitaabka tawreeda uu xarimay ribada waxay ku taala isla tawreedan hadda ay haystaan oo waliba ay sida quraanku sheegay wax badan ka bedeleen way ku ciyaareen ayadoo la bedelay baa wali waxa ku siyaala nusuus ku tusaya in ay ribadu yahuuda iyo nasaara labadaba xaraam ay ka ahayd مثلا waxa kamida سفر اللاويين وعهد القديم كون عهد القديم سفر اللاويين وحكو سو اروري نص كان كويب وحليها النسك إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك لا تأخذ منه الربا ولا مرابحة بل اخش إلهك فيعيش أخوك معك فضتك لا تعطيه بالربا وطعامك لا تعطيه بالمرابحة وحكوت على التوريد نسك أورانية ولالك هدو باهدو أو قعنتي سو أكتادا قابطو وحقبسان وايو تاغير أو وحتر
أما قريب هذا أما مد ودني أو ودنك كل دجن هذا هكل النولادو ولا الكربها كقاضني مرابحنا كقاضني الله كبق ولا الكها كل النولادو في الضدادة ربها كسيني عنتدادنا مرابحها كسيني ولا الكوابهي هي عاوي لكن ربها كقاضني سيداسات توريت كتال نسك لو حكي له سفر الخروج يسوون وحوي وحليه إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضع عليه الربا الله سبحانه وتعالى وحليه يعني وحوي سيدا كم وقت النسك معناه شعب كيغا هدي آد فضة ديميسو ودين سيسو شعب كيغا فقير كيباهن ee agtaada ah hadaad wax daymiso ha noqonin mid riba ka qaata ribaha ka qaadan dadkana ribaha dul saarina naskaas oo kale wuxuu ku yimid oo ku soo arooray yaani wax weeyaan isagana sifru at-tathniya jamiic wax way waa kutubta ku taala al-ahd al-qadim oo tawreed ah injiilna sidoo kale waxa ku yaala nusuus xarimaya ribada xarimaya لكن وحكوت الله إسلام مركزي كتاب كان عهد القديم كأي هيان أي هايستان وحكوي الله ربضة ولا الكاجا يهودي جاء بي حرام كتها إن تقولر نقنت لكن وحن يجا هين ضدك كلا ربضة كقات سيدا سوى حكوت الله أيضنا سفر كلو يقانو يعني وحويان يعني سفر التثنية أي كتالة نسكا سكوية لا أورانيا يهود دحدة يجوا إني الربا كلا قاتان بحرام كا لكن ضدك كلا الربوات كقادن كرتان أو الربوات كلها معاملان كريسان نسكا سوحي أبدان تاعي إنه يه النسل التحريفي أو كتاب كي إلهي سود دقي وحيالها يكبد دلين علماء ضوضو كدرين إني كم تاعي قيب تاسيبي أبدان عيل إلهي سبحانه وتعالى وكقرآن كل شيء markay yiraahdeen laysa alayna fil ummiyiina sabiil dadka aan ahan yahuuda inaan waxaan doonno ku sameeyno wax naga soo gaadhay ma jiro inaan xoolahooda bilaash ku qaadano waxba naga soo gaadhi maayo quraanku markuu saa u sheegay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa radiyay hayla ilaahay shucuubtiisu waa isugu mid shacabkana ribo ka qaado kaanaha ka qaadanin wax jira ma marka waxay u badan tahay qaybtaasi inay tahay waxyaabihii iyagu ay kitaabka ka bedeleen laakiin ujeedadeenu inaga waxa weeye inaan yaani ithbaatinno sugno kutubtii saddexda ahayd tawreed injiil iyo quraanku inay isku waafaqeen ribada qaadashadeedu inay xaraam tahay waxayna ku tusaysaa arintaas kutubta saddexdaaba hal meel inay ka soo wada jeedaan asalkoodu inuu alla ka soo wada jeedo subhanahu wa ta'ala ayelay ma dhici karto haday meel kala gedisan ka soo kala jeedaan inay isku waafaqaan qodobka isaga ma dhacdeen iswaafaqidaasi waxay ku tusaysaa asalka kutubta saddexda inay ka soo jeedaan hal meel ka soo wada jeedaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dajiyay ku tusaysaa macna tayib ribada waxa inta badan jasiiratul arab waagi hore aad ugu faafiyay saadogsoontiin baqoysas yahuudeed ba ya jasiiratul arab aad u dagay oo khaasatan madiina saddex qoyso asalkoodu reer bani israa'iil ah ayaa madiina deganaa reer bani qaynuqaac iyo bani qurayda iyo reer bani nadiir maadaama dhaqanka ribada iyo ku tacaamulkeeda agtooda marka ay ka banaanayd waaga ay u hijroodeen ee madiina ay degeen waagaasay ribada geeyeen jasiiratul arab daa'if bay markii dambe u gudubtay daa'ifna way ka gudubtay waxay u gudubtay makkay u gudubtay oo quraysh rag odayaasheeda kamida ayaa ribada ku dhaqmi jiray oo uu kamid ahaa nabiga adeerkii salawaatu rabbi wasalaamu calayhi Abbaas ibn Abdul Muttalib wa ka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oranayo markii ribada la baabi'iyay ribada jaahiliga ah ee jaahiliyadu ku dhaqmi jirtay maanta wixii ka dambeeyay cagta hoosteedan galiyay ribada ugu horeyseen baabi'inayna ribada adeerkay Abbaas weeyaan buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka dhaqan bay ahayd carabtu taqriiban soo galay laakiin kaga yimid يعني وحوي ريب بني إسرائيل كي سوه جرودي سو دقي جزيرة العرب
وحكلتو إيدنا كنت عامل جري نصارى دي لديه جري نصارى نجران مين اللي يراهدو نبي صلوات ربي والسلام عليه يقرأ وحول لك علي هشيس بول لك علي عهدي يبلن بول لك علي بلنتو لك علي وحكم ذا هاي إن الربا الدايان ربا إن الدايان بلنتا way qaadeen inay ribada daynayaan laakiin way dayn waayeen waa ku adkaysteen markii dambana waa laga raray oo macnaha waxa way arintaasi waxay kamid ah arimihii ay ballanta ku jabiyeen sida yaani waxa way uu ku sheegayo yaani Abu Ubayd kitaabkiisa al-amwal uu ku sheegayo marka taariikh ahaan ribadu marka ila waqti hore waxay kamid tahay dhaqamada bini aadamka ee ka leexday kutubtii Ilaahay soo dajiyay haduu Tawreed yahay Injiil yahay haduu Quraanka yahay ka leexday ee garab marasan ila waqtina lagu dhaqmeeyay ay runtii kamid tahay Quraanku ribada aad iyo meel adag buu isagu iska taagay shariicada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam maadaama ay tahay shariicada cadaaladda ku salaysan khalqigana wixii maslaxadooda iyo dantooda ku jirto ugu yeedhaysa wixii dhibaato u geysanayana kala dagaalamayso kala talinaysa shariicada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ribada meel adag bay iska taagtay waxaana kamid tahay nidaamka dhaqaale ee diinta islaamku ay leedahay ee ay kaga gedisan tahay anzimada dhaqaale ee adduunka ka jira nidaamka hanti wadaaga ee reer barigu ay lahaayeen ruushka iyo China iyo dawladihii raacsanaa iyo nidaamka hanti goosadka ee reer galbeedka labada nidaamba nidaam ka gedisan ayay diinta islaamku leedahay oo dhaqaale nidaam dhaqaale oo labada midna ahayn bay leedahay nidaamkan reer galbeedka ee hanti goosadku asaaska uu ku salaysan yahay waxa weeyaan waa ribada asaaskiisa dhan tiirka uu ku taagan yahay waa ribada qaadashadeeda waa dulsaarka qaadashadiisa waa mucaamalaadka ribowiga ah bangiyadooda muassasaadkooda dhaqaalaha يعني وحوي يعني تجارتooda waaweyn waxay ku salaysan yihiin waxa weeye waa ribada laba qodob bay ku salaysan yihiin labada qodob ba shariicada diiday qodob waa ribadaas qodobka labaadna waa ixtikaarka iyo kaydsiga macnaha waxa weeyaan badeecadii oo suuqa looga baahan yahay in la kaydiyo oo la xanibo ilaa ay ka qaaliyowdo markay qaaliyowdo suuqyada la keeno si dadkii sicir barar loogu rido suuqyadii sicir barar loogu rido noloshii cidhiidhi u gasho ixtikaarka iyo kaydsiguna waa tiirka labaad ee uu ku taagan yahay nidaamkan hanti goosadka ama ra'samaaliga loo yaqaan labadaba shariicadu waa diid ixtikaarka waxa kamid ah mesela in la yiraahdo shaqooyinka qaarkood iyo jaanisiyada qaarkood waxay u xidhan yihiin oo iska leh شركاتك واوين باسكله مثلا يعني وحويان مثلا بابور تصمين تودا مثلا بضيعه هبله كينيتان كده مثلا بيرها وحي كسو غا شركات واوين oo hanti badan leh oo rag yar ay leeyihiin ayaa jaanisiyadii ganacsiga oo dhan loo xidhaya dawladuna ayagay u kaydinaysaa dadweynihiina waa laga qadinayaa meesha marka waxa ka iimaanaysa in dhaqaaluhu dhamaantii ku urursamo koox yar gacantooda ku ururo dadweynihii kale dhan ay u noqdaan kooxda yarta inay shaqaale u noqdaan laana waxa ixtikaarka keenaya shariicada islaamku ixtikaarka iyo kaydsiga meel adag bay ka istaagtay la yahtakiru illa khati ribadana meel adag bay ka istaagtay waxa la doonayaa marka nidaam dhexdhexaad ah oo kii reer barigana aan ahayn kii reer galbeedkana aan ahayn bay shariicada islaamku ku salaynaysaa aragtideeda dhaqaale waxay ku salaynaysaa aragti madax bannaan sida maalan nidaamkeeda akhlaaqeed ba ay ugu salaynaysaa aragti madax bannaan nidaamkeeda bulsho ay ugu salaynayso aragti madax bannaan nidaamkeeda siyaasadeed iyo dawladeed ay ugu salaynayso aragti madax bannaan ayay dhaqaalahana shariicadu waxay ku salaysay aragtideeda madax bannaan